أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan rabnaa bismillahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada bahda aqoon-yahan academy casharkeena ama fiidiyooyigeena cusub oo aan rabno inaan kaga hadalno imtixaankii la qaaday sanadka hore 2016 kuna saabsanaa maadada la yiraahdo aptitude-ka ku saabsanaa. halkan marka waxaan uga rabnaynaa qaybta la yiraahdo synonyms-ka. synonyms iyo antonyms waxyaalo badan ka kooban tahay, laba qaybood buu ka kooban yahay sidiisu and aptitude. Lowland areas usually get intermittent rain as a result they have low animal and crop production. Dhul-hoosaadku wuxuu leeyahay intermittent rain. Marka intermittent inaad garanayn baa laga yaabaa, laakiin waxaad garanaysid ay yihiin kuwan kale. marka dhul-hoosaad maadaama uu yahay dhul-hoosaadku waxay leeyahay roob muxuu marka yahay wuu sii macnoon as a result they have low animal, macnaha consequences-ka ayaa wuxuu yahay low animal production and crop production. baadkuna waa ku yaryahay, xooluhuna waa ku yaryahay, marka waxay roob yari weeye. kuwan kale marka qeybaha ereyga la macno waxaan ka warramayn waa synonyms isku macno. marka waxay substantial waa badan, frequent waa soo laabta, regularna waa joogto ma noqonayso marka. laakiin inta maadaama isku macno yihiin ereygan way ka soo horjeedaan, la macno noqon mayso. marka waxaa la rabaa erey la macno ah oo hal mid keliya noqonaya, kaana waa sporadic iyo intermittent waa isku macno oo ah dhif iyo naadir, wax aad u yar oo mar la arag meelaha dhul-hoosaadka saas marka roob ku yaryahay weeyaan. waxaa ku xiga analytical work, habits jeopardize individuals development efforts and countries overall growth potential. caadooyinka shaqada ee xun ee aan fiicnayn waxay horumarka qofka ay khatar gelisaa weeyaan. horumarka marka tan inaad garanayn baa laga yaabaa, laakiin si ku ogaanaysa waxaa ku ogaanaysa maadaama ereyada isku macno ay yihiin. ereygan erey la macno ah baa la rabaa. ereyga la macnaha ana hal mid buu noqon karaa. haddii saddex isku macno noqdaan isku dhawaadaan speed, accelerate, facilitate, kan iyo kan waa isku macno, marka wax macnaha ma abuurayso. kan iyo kan inay isku macno yihiin kaasaa marka waxa weeyaan determinant waa xagal daacin weeyaan. halkan waxaa ku yaala qaybta saasaa uga baxnay. analogy waxa weeyaan ereyada xiriirka ka dhexeeya weeyaan. answer questions 29 to 32 based on the pair that best express relationship similar to that original or capitalized pair. ereyada halkan ku yaala iyaguna sidoo kale macnahooda halkan ka raadinaysa. ereyado analogy baa la yidhahdaa. jumlada hore ee labada iskula socota yaa halkaa mid lagu dhigayaa, midna choiceska lagu siinayo. marka xiriirka ka dhexeeya baa iskula socodsiinaysa. team player dadka ciyaaraya kooxaha ah, koox markay u ciyaarayaan team player oo kale. team waa koox, playerna waa ciyaare, markaas daraateed playerka oo ciyaaraha ah, teamka oo ah koox waa badan. halkan marka waxaa ka fiirinaysaa isdhibi sida structure ay u dhisanta. halkan uga fiiri member baa laga rabaa, sida tan oo kale member waa xubin, kana waa xubin, kan waa koox, kana halkan koox inuu yahay bal rabo. markii kuugu noqonay kuwan waa members. waan ka gudbaynaa marka. su-aasha kale ku xigta waxaa weeyaan wonderful, satisfactory, gigantic. wonderful waa waxa lala yaabo, satisfactory markii la yaabto way ku qanciyaan, gigantic weyn erey isku macno. large weyn weyn. laakiin erayadan waa ereya isku macno ah. erayadan si isku xigaan baa la rabaa. satisfactory result marka shay qof la yaabo labada hadda kale wonderful, satisfactory isku macno. comprehensive ma la oran karaa. marka justice, fairness. justice marka cadaalad leh, fairness baa imaanaysa. compassion, justice, rational way ka baxayaan meesha. bias baa noo taal aan garanayno, prejudice baa marka soo qaadanayno.
botany waxa weeye cilmiga barashada waxa weeyaan barashada cilmiga geedaha plants kuu keen barashada geeduhu waxa weeyaan botany. Soil ciid buu halkaa kuu dhigay. Barashada ciiduna waa maxay? Biology iyo sociology iyo pedagogy waa inaan saddexdaa garanaysaa uga socodid kan marka pedagogy weeyaan. Halkan waa antonyms. Antonyms marka iyaguna isla sidii kale synonymskii oo kale antonyms su'aalaha 33 ilaa 35 laba su'aalood baa marinaya 3 su'aalood wuxuu kuu soo hormariyay ravage eragan lidigiisa keenaysa ravage marka lidigiisa si aad garanayn wixii isku macno ah waa diidaysa damage iyo devastate iyo ruin waa isku macno same looma baahna hal mid baa laga rabaa oo ah renovate kan baa kasoo horjeeda waayo saddexdan waxay la macno yihiin kan waxa la macno ah lama rabo waxa kasoo horjeeda baa la rabaa waasa immaculate spotless tidy filthy lucid marka waa waxa kasoo horjeeda filthy immaculate intaan kala isku macno daunting waa maxay daunting garan maayo hadda kasoo dhig inaan garanayn daunting marka waxay noqonaysaa intaan kala laakiin garanaya frightening discouraging intimidating baa isku macno laakiin entertaining waa ka macno duwan yahay marka daunting oo ah cabsigelin entertaining ama caajisin waxaa kasoo horjeeda entertaining oo ah maaweelin iyo ciyaarin waxaas oo kale. Intaas ayuu casharkan ku joogaa waa soo badan doona haddii la yiraahdo commentiska like-ta iyo wax weeyaan subscribe-taba anaga ilaawin aqoonyahan academy halkaan in ka salaamayna dabcan waxaan soo gelin doonaa wixii markaa sanadka hore ahaa 2016 imtixaanadii lagu galay 12aadka ayaanu haddii ilaah yiraahdo soo gudbi iyagoo dhammaystiran faahfaahsan oo biology leh oo physics leh oo chemistry leh oo english leh marka saa daraateed kanaalkan si fiican ugu xirnaada like-ta saara waxba kala baqaylina share gareeya meel walba ka tuura.